بسم الله الرحمن الرحيم مالود بان برتيده فيسبوكا gaarka baan asxaabteedu waxaan kula wadaayo qoraal aan ku tilmaamay hab uu qofku ku ogaan karayo in uu garaad ahaan ama qof ahaan korayo deetana faalooyinkii ka soo laabtay waxa kamid ahaa habka kaliya ee lagu ogaan karayo qofku inuu korayo baa midan aad nala wadaagtay deetana waan ka fikiray waxaan jeclaysi markaan muuqaalkan idin kula wadaago afar calaamadood oo qofku ku ogaan karayo inuu korayo garaad ahaan waliba qofku uu korayo ana siyaabooyin badan ba waxa jira inuu ku ogaan kareen inaynu jir ahaan korayno inaynu ruux ahaan korayno culimada aad uga hadla laakiin garaad ahaan inaad korayso maxaad ku ogaan karaysaa midii aan la wadaagay Facebook-an asxaabteeda kula wadaagay baan ku hormaraya taasoo ah bartan hadda aad iga daawanaysaan hadii aad YouTube-kayga daawanaysaan waa habaad ku ogaan karayso inaad qof ahaan korayso iyo in kale hadii aad in uun eegto history-ga YouTube-kaaga waxaad ogaan karaysaa oo aad eegto 500 muuqaaleed daawatay ugu dambeeyay waxaad ogaan karaysaa inaad qof ahaan korayso in kale hadii 500 muuqaale ugu dambeeyay ee aad daawatay 50 noqdaan kuwa entertainment ah kuwa aan garaad ahaan iyo xirfad ahaan iyo qof ahaan shakhsiyad ahaan aan ku korinaynin waxay calaamad u tahay inaadan qof ahaan aadan korin ugu yaraan bartan maalinkii intaasoo kuno saacadood oo muuqaalo waxtar qofka garaadkiisa iyo kasmadiisa kobcin karaya inaadan ka faa'iideysanin oo aadan fursada aadan ka faa'iideysanin oo sida aad cagsigeeda ku daawanayso waxaan qof ahaan ku korinaynin garaadkaaga aan iyo wacyigaaga iyo maartay fikirkaaga aan bilaadinaynin calaamada labaad aad ku ogaan karayso inaad garaad ahaan korayso in kale waxa weey inaad wali asxaab la tahay dadkii aad childhood friends ka ahaydeen dadkii aad 5 sano 7 sano 10 sano ka hor aad iskuulka isla dhigan jirteen ama kubadda isla ciyaari jirteen ama aad gabdhihi aad saaxiibada ahaydeen hadii aad wali qolyihii aad asxaab la tahay wax calaamad u tahay inaadan garaad ahaan koraynin waayo asxaabtu maraaxil baa la soo wada maraa oo dabcan waqti fiican baa laga yaabaa inaad la soo qaadateen laakiin saaxiibadu ma heerkii ma wada joogaan dadku heerkii ma wada joogaan waa la kala koraa hadii se aad dadkii aad xilliga aad la soo korteen aad wali ay noloshaada ka qayb ka yihiin aan si kale u idhaahdo hadii waqtiga ugu faraha badan wali aad siinayso dadkii aad 10 sano ka hor aad la soo korteen oo aad og tahay inaanay comfort zone ka bixinin inaanay ku hinaasa gelinaynin mararka qaarkood waxyaabaha ay ku fikirayaan iyo waxyaabaha ay qabanayaan hadii aanay ahayn dad hore u socda waa laga yaabaa asxaabtii aad isla soo korteen qaar kamid ah inaad wali is haysataan oo ay korayaan oo ay socdaan oo aad jiidaysaan oo isriixaysaan oo aad horumar sameynaysan sanad ka dambe aad horumar ku tallaabsanaysaan laakiin inta badan waxay u badan tahay in qofku wali uu la fadhiyo oo la sheekeysanayo oo waqti far badan la qaadanayo saaxiibadii uu lahaa yaraantiisii waxaana la yiraahdaa saaxiibadii yaraantii kaliya aad lahayd kaliya ma ahane waxa la yiraahdaa hadii aanad loos gareynaynin saaxiibo mar walba si joogto aan u loos gareynaynin waxay daliil u tahay inaadan koraynin way dadku isku si uma koraan hadii aad bartii ay saaxiibada taagan yihiin aad iskala joogtana waxa way adigu hore uma soconayso taa calaamad bay u noqonaysaa inaad hore u soconin waa inaad sanad ka dambe aad noloshaada ku soo kordhinaysid asxaab cusub oo han leh oo ku dhiirigelinaya oo aad dabka ku qabsato oo hore u socda oo marka la joogooda mararka xiliyada ugu horeysa aan comfortable aad dareemayso waayo comfort zone-kaaga wax ka baxsan bay ku fikirayaan ha fikirkaad ku fikiraysay aqoontii aad lahayd experience-ka waxyaabo laga sheekeynayo wax aadan gaadhin oo aad u baahan tahay inaad gaadho dad ka sheekeysanaya waa inay ahaadaan marka aad bay arrinta muhiim u tahay arrinta saddexaad aad ku ogaan karayso inaad calaamada aad ku ogaan karayso inaad qof ahaan korayso in kale waxa weey inaad sanadkii aad akhrinayso wax ka yar 12 book
ها sanadkii 12 bug wax ka yar hadii aad akhriyayso waxay calaamad u tahay inaadan qof ahaan koreynin yani qarnigan aynu noolnahay 20 iyo 21st century dhowrkii sanaba aqoontu maanta way la bajibaarantaa New York Times kaliya jarada New York Times waxa la yiraahdaa maalinka kaliya wacaalka ama wiigii wacaalka ay weelayso ama ay kaydka galayso waxay u dhigantaa qarni dhan oo quruntiina soo maray kamida waliba quruntii ugu wax soo saarkii aqoonta faraha badneed mid kamida wacaalkii soo baxay qarnigaas oo dhan bay u dhigantaa kaliya New York Times weekii ama toddobaadkii wacaalka ay kaydiso marka xilli noocaas aynu mareynaa xilli waxaynu mareynaa creativity-gi iyo aqoontii iyo yani aqoontii ay balaaratay oo laba jibaarmayso oo la leeyahay 5 sano ka hor wixii aad baratay gabow waa ku dhacaya marka kuma survive gareyn karaysid yani nolol caadi waad ku noolaan karaysaa laakiin nolol غير العادية oo ka duwan nolosha dadka kale oo aad nolosha wax ku soo kordhinayso naftaada wax ku soo kordhinayso qoyskaaga wax ku soo kordhinayso nolol noocaas ama caynkaasi kuma noolaan karaysid ama ma gaari karaysid ama ma abuuran karaysid hadii aad sanadkii akhrinayso wax 12 bug ka yar arinta afraad ee ku soo gabagabeynayo waxa weeye 3 sano 4 sano 5 sano ka hor wixii aad qaban jirtay wax qabadkaaga hadaad halabuur ahayd oo aad suugaan sameeysay hadaad wariye ahayd hadaad buug qoraysay ama Facebook aad wax ku soo qori jirtay hadii aad macallin tahay 5 sano 3 sano ka hor habkaad u fakiri jirtay habkaad wax u qori jirtay habkaad wax u hadli jirtay meelaad ka fakiri jirtay qiyamkaaga sidoo ahaa arimahaas oo dhan hadii aanad qawadin oo aadan yaraysanin oo aadan oraniyo sidan baan u fakiri jiray 3 sano 4 sano ka hor waxay calaamad u tahay inaad korin waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaa afartan calaamadood ay calaamad ugu noqdeen ama sabab tusaale ugu noqdeen qofku garaadkiisa uu korayay in kale qofku sidiisaba garaadkiisa waxyaabaha qofka garaadkiisa kobciya ee koriya waxa kamida inuu qofku afkaar cusub ee maskaxdiisu ku soo biirayso in mafaahiim cusub uu gaarayo in experiences cusub oo ka duwan mid kan caadiga ah ee ku jiro inuu noloshiisu hadba ku nooshahay oo experiences cusub noloshiisu la kulmayso waxa kamid ah in qiyamkiisu isbedelayaan qofku marka uu wax akhriyo marka uu muuqaalo afkaartiisa iyo mafaahiimtiisa kobcinayo bedelaya marka uu daawado marka uu asxaab muxuu ahaa ka horeeya oo uu ku dab qabsan karayo oo u fakaraya ama gaaray waxa uu doonayo ku himiloonayo dad ka duwan marka uu qofku la saaxiibo arimahaas oo dhan waxay kobcinayaan qofka mafaahiimtiisa bay wax ka bedelayaan afkaartiisa bay kobcinayaan wax ku soo kordhinayaan qiyamkiisa bay isbedelaya wixii shalay uu ku qanacsanaa waxaan maanta ahayn buu ku qancaya oo qiimo la yeelanaya waxa shalay qiimo la lahaa ayaa maanta qiimo aan la yeelanaynin ihtimaamaadkiisa bay isbedelaya yani noloshiisa oo dhan baa isbedelaysa wuxuu isku dayayaa inuu raadiyo experience ka duwan experienceski caadiga ahaa oo hore uu la kulmi jiray kuwa ka duwan ku fikraya marka runtii arimahaas aad bay muhiim u yihiin waxaan jeclahay inaad muuqaalka marka daawataan aad wixii idin kaga soo baxay aad qaybta hoose aad igula wadaagtaan haddii aad jirto wax kale noloshu idin bartay oo ku saabsan qofka lagu ogaan karayo inuu garaad ahaan korayo laftirkiina waxa weyn aad hoos igula wadaagtaan haddii Ilaahay yiraahdo intaan muuqaal dambe iyo kulan dambe aynu isugu imanayno waxaan dirjinay khayraad fara badan waxa la akhriyo comfort zone-ka laga baxo asxaab cusub oo halka aad nolosha aad hiigsanaysaan nolosha ku soo kordhiya khayr fara badan baan dirjinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته